waxa uu kala dhaxeeyaa labada xaafadood ayuu u dhaxeeyaa xaafad laamiga wuxuu ka soo galayaa waa bari dhacna wuxuu ka soo galayaa xamar jajab labada xaafad way isku dhow yihiin wallahi hada ilaaha ma iskale marka hore anaga wasaqaan ku dhex jirnay wasaqaas meesha maraya aan biyo ku caawin shaan ku caawin raashin ku cunayna hadda ma sha Allah wallahi nadiif waa meesha boqol haddii dadka ku dhaqan degmooyinka waa bari iyo sidoo kale xamar jajab lagu tilmaamayay dad aan ilaalinaynin nadaafadda waxaa hadda muuqata in dadweynaha ku dhaqan degmooyinka xamar jajab iyo waa bari ay si toos ah u fuliyeen amarka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir oo ahaa in bilicda caasimadda la ilaaliyo sida muuqataba wadadan isku xirta degmooyinka waa bari iyo xamar jajab dhawaan ayaa xariga laga jaray hase yeeshee saaki ayaan warbixin u nimid si aan u diyaarino dadweynaha waxay sheegeen in ay fulinayaan amarka ka soo baxay duqa caasimadda oo ahaa in bilicda caasimadda la ilaaliyo waxaana wadadan ka muuqata in dadweynaha ay isxil qaameen oo ay fuliyeen amarka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ilaa saaki wadadan ayaan warbixin ka diyaarinaynay waxaana muuqata in dadweynaha ay markaasi fuliyeen amarka guud ee ka soo baxay maamulka gobolka oo ahaa in marnaba aan lagu xadgudbin wadadan dhismaheedana maadaama uu ku baxay qarash aad u tiro badan dadweynaha ay noola hadlayaan waxay sheegeen in haatan ay ku faraxsan yihiin in wadadan bilicdeeda ay ilaaliyaan isla markaana marnaba ay suurtagali doonin in biyo wasakh ah wadadan lagu soo daayo sidoo kale dadweynaha waxay sheegeen in ay la kulmeen ganaax maadaama markii hore wadada biyo ay wasakh ah iskaga soo daadin jireen laakiin haatan cid kasta oo biyo wasakh ah ku soo daadisa wadada ay la kulmayso ganaax lacageed taasi oo keentay in wadada wax wasakh ah laga ilaaliyo waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan degmooyinka xamar jajab iyo waa bari oo inoola hadlay iyagoo maamulka gobolka ka codsaday in wadada loo sameeyo askari jiifa wallahi hadda ma hore wallahi hada ilaaha ma iskale marka hore anaga wasaqaan ku dhex jirnay wasaqaas meesha maraya aan biyo ku caawin shaan ku caawin raashin ku cunayna hadda ma sha Allah wallahi nadiif waa meesha boqol wax loo sheegi karo malaha ilaahan ku baadiyayna dowladayna ku maadiyayna gobolka duq magaalada ay ku maadiyayna insha Allah biidna taala saan isiga fiican hadan waa sugayna insha Allah marka dadka deegaanka markii hore biyo soo deyn jiray had maxaa ganaxa lagu dhuftay ma xajir hadda guri kastaba waa la ganaaxay oo biyo daadiyo guri kastaba wax biyo daadi kara ma jiro haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah biidna saan isiga fiican in Ilaahay noo kaso waxa u baaqaysaa duqa caasimadda iyo maamulka guud ahaanba wallahi guul idalo wacan ay shaqo wanaagsan intaas warbaahinta gobolka kusoo dhawow wadadii waa bari iyo xamar jajab u dhaxaysay waa la dhisay sidaan ku xun tahay dadka deegaanka maxaa isbedel wallahi billahi horta wadadan awal waa laga cawaadi jiray inta buslaami waa wada wuxuu ahay waa jajabnay maanta mungaab ma sha Allah magaaladii bilixdeeda waa soo celiyay magaalada rinji laamiyada kala ilaab ma sha Allah xamar ma laga sheekeyn karaa okay marka dadka deegaanka maxaa isku bedel maadaama wadadan biyo iyo wasakh lagu caawin jiray wallahi wadadan xamar jajab waa laga faani jiray ma faanti in walba ma xamar jajab maxaa waay u dhijir laakiin hadda laami marka la arko badar hadii lagu riixo xitaa caadi loo cuni karaa nadiif waay dadkiina waa isbedeleen ayagana bulshada dhaqanka ee dhax galeen hadda meel wasakh taala ma arkaysi kulli nadiif waa wadooyinka ma sha Allah waxa u baaqay marka dadka deegaanka maadaama wada loo dhisay oo muhiim ah wallahi dadku waxa u baaqaa horta inay mungaab gudoomiyaha soo dhaweeyaan ma sha Allah iyo nabad inay ka taliyaan inay meelahooda hadda loo sameeyay hagaajiyaan dib u hagaajis u sameeyaan inay isdhiibin shacabka marnaba ay isdhiibin dal waxa hagaajiyo dadkeeda kale waxaan kala ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo macnaa oo kaalin weyn oo ka qaatay inuu laamiga noo dhiso sidoo kale waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha maadaama oo laamiga oo noo dhisay oo noo qurxiyay oo bihiina ay xareen boorkiina ay xareen goobihii macnaa ganacsigana aad u socon yahay hal maada kala ka codsanayna oo ah in oo inoo sameeyo askari jiifo waayo laamigaaneti waa laami oo ay ku badan yihiin caruurta aad ugu badan waxbarashada oo dukaamanka loo soo dirsanayo oo gabaaridan iyo mootooyinka zaidka oo foorkanka zaidka ay u socdaan oo loo baahan yahay wax xadida taasna waxaan xadidi kara askari jiifo in loo sameeyo marka dawladda waxaan ka codsanaynaa in askari jiifo meelaha qaar oo siiba ardayda iyo caruurta ay ku badan yihiin inay u sameeyaan askari jiifo intaas aan uga codsanaynaa maamulka gobolka Banaadir mudana mungaab intaas aan ka codsanaynaa horta
بدأ بقول كيف بقولها في عنتا بدأ لقضي وسقدي وحدًا قرن كهاي وأنا يرادي بقول وكان إعلامي نقول سي وحي أو جدي وين أنا رسوبي أو ملاك قد أو رسوبي حافظ أنا أبيك سبحون حافظ يبيدن هذا ما له إعلامي مركب فرع سنة إعلامي نقول سي حتى نقول سوبي دل على رب ما تا مل بيمرن نقول سوبي ساس أنت هذا وكفر سنة كاتو أنا حدانا هاي في كل حدانا إعلامي ذا وبقني برتاني أنا ونحينا الحمد لله إله كوما حسن هدرتان أفسيوني كسوقة إلا فردود ترتيب تعالوا يا ساربتي وعن حوالها كسيف عنان لهيد أسكرجي فحوالها إنا كدر درتان ماشي وعا صوم ماري كرا عيال با صوم ماري كرا وعا صوم ماري كرا ويل با صوم ماري كرا وعا وكل دحيا لبدا حافظات أيو دحيا حافظ اللامي وحو كسو غليا وبري دحنا وحو كسو غليا حمر ججب لبدا حافظ way isku dhow yihiin waxa loo baahan yahay in laba boos kadib askari jiifan loo sameeyaa ma ninka shalariis inuu iskaga soo hurda معقولة 5 كلها أو سعلي كرين ومعنا هذا عين قرا ماشي كصابعي كرا وح معقولة إنه ماشي إنه حلا أو وحجرسي أو لا مو غرفته حلا الحمد لله إذا كم سن سدي هراء معمول قبل بنادر إنجنير مونجاب أو عم بليين هنا وأنا وحجر هذا وحن أكسي عبونا لا جد كانوا أنيرانا وفهمينا جد كموسكو أنيرانا wuxuu kala qaybinayaa fasiyooyin ka soo bilaw ilaa fardood ilaa wuxuu dhaxayaa jidkan waa bari ilaa xamar jajab ayuu dhaxayaa alxamdulillah ilaaha ku mahsan waan taageeraynaa guul dhanka kale gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir oo asna noola hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay kontarool ku sameeyeen wadadan maadaama wadadan markii hore wasaq lagu soo daadin jiray laakiin dadka ay la kulmeen garaac taasi oo keentay in dadweynaha ay fuliyaan amarka ka soo baxay maamulka gobolka banaadir waayahay waa mahadsantihiin sidaad igu soo booqateen warbaahinta gobolka banaadir haddii arrintaas aan u guda galo sidaad la socotid wadadan la dhisay ee buundooyinka sidaad la socotid waa marka saddexaad oo la dhisay wadadaas waxay u burburaysaa waxay ahayd arrimo nadaafad darro oo ah biyo bulaacado fara badan oo ka imaan jiray xaafadaha aad uga soo bixi jiray laakiin sida hadda loo dhisay wadada oo aad la ka warqabtaan adinkaba indhihiina aad ku soo aragteen maamulka degmada xamar jajab waxay ka qabteen hawl adag ay ka qabteen shaqadaas laga qabtay xaqiiqatan waxay ahayd shaqo aad runtii muhiim u ah bulshada oo dhammaan dadku waxay maanta ka marqati kacayaan sida aad aragteen in wax biya aysan wadadaas imaanayn qashin fara badan aan la keenayn oo maanta nadiif ay tahay oo dhan kasta marka laga fiiriyo isu socodkii iyo wixii oo dhan ay fududaadeen marka dadaalkaas iyo juhdigaas waxaa sameeyay maamulka degmada xamar jajab iyo kan waa bari oo iskaashanayo iskaashiga iyo amarada la duldhigay shacabka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ayaan dhaweyd noo daahfuray oo isagu laftigiisa xitaa amar ka soo saaray ayay warqad maaragtay bulshadii amarkaas ayaa ka joojiyay inay hawlahaas oo dhan marka ay sameeyaan annaguna mar walba waxaan ku daba taaganahay inaan wadada ilaashano oo saas ay u qurux badnaato cid allaala ciddii markaas iyadu ku xadgudubtana isla markii tallaabo sharci laga qaado oo degmada ilaa saldhigga lala tiigsado waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay wadada sidaas nadiif u ahaan doonto bulshada reer xamar jabna hadda waxay dareemeen nadaafadda iyo quruxda iyo bilicda ka muuqata degmada xamar jab adinkana indhihiina aad ku soo aragteen bulshada aad soo wareysateenna ay ka marqaati kacayaan tan iyo markii xafiiska yimid gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho jarnaal xasan maxamed xuseen muungaab waxaa la dhisay wadooyin badan iyadoo wadooyinka bilicdeeda ay soo laabatay subax walbana shaqaalaha gobolka ay ku qoran yihiin ololaha nadaafadeed farxaan maxamed xuseen warbaahinta gobolka muqdisho.